dhalinyarada ku dhaqan magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa eedin ballaaran u soo jeediyay ururka dhalinyarada Somaliland ee Sooya taasi oo muddooyinkii ugu dambeeyay dhalinyarada dhalinyarada ku dhaqan gobolada iyo degmooyinka dalka Somaliland waxayna dhalinyarada ku dhaqan magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ku tilmaameen group ku maxaafsada inay matalaan dhalinyarada Somaliland waxayna sheegeen inay ka kooban yihiin in kooban oo leh dan kooban iyaga oo midaysan kana warramaya arrintaasi ayaa waxa ay dhaheen sidoo مثلاً كواسي سومالي ما مثلاً قبي أهانبا يعني قول الله بريقنا ما بتشرتوا ميل حفيز كله بالعقل هذا هاي ما نرق لين اللي راه سبورت سوالي ولي ما نرق قول حبيت كبده هو كتمي حبيت كبده هو كتمي أما قصعته حبيت كبده هو هلا اللي عيال قفلاده واللي يقول الصويا بحسي أما حبيت قرنا ولقي ما نرق حلو الشيء واحد اللي راه عد لقوم حافظ كراينا ليشرين waxaan doonayaa inaan halkan raayigay kaga dhibto ama fikirkayga daladan isku magacaawday dalada dhalinyarada qaran ee Soomaaliya leeyahay kuwaas oo aan dhalinyarada wax u qaban ee aad moodo inay magacooda ku shaqeystaan iyaga oo ku soo qaata mashaariic ay ku baxdaan kumanaan kun oo dollar iyo malaayiin dollar iyagoo aan ogeyn in loo dhisay guri weyn oo aad u qurux badan balse aanay jirin wax ay u qabtaan dhalinyarada iyadoo aan arkayna maalin walba in dhalinyaradu ay shaqo la'aan jirto oo aanay jirin wax xataa ay u qabtaan waxbarashada aanay ka caawinin dhan dhaqaale aanay ka caawinin waxaan leenahay dhalinyaradu hay isu tashato halagu kacsoonyo hal iska difaaco ida shacab yawman arada alxayaa fala budda an yastajiba alqadar aynu taad ka yeelano inagoo Soomaaliya kaga soo horjeednimo mabda'eenu ha noqdo inaan Soomaaliya la dagaalano maaha wax matala maaha wax qaadan kara magaca dhalinyarada waxaan leenahay runtii intii ay sheeganayaan magaca dhalinyarada ay sheegtaan waan iska taxsiin haddana dhalinyarada magaca ay naga qaateen waayo waxaan aragnaa magaca naga geeyooday imikana waxaan leenahay haddana dhalinyarada gobolka Togdheer talaan ka gaari doonaa waxaan halkan ka sheegaynaa cid kastoo danaynaysa danaha dhalinyarka iyo horumarka dhalinyaradaba inaanay jirin danihii dhalinyarada ciddii ka shaqayn lahayd ama daladii Soomaaliya hadday qaranka Soomaaliland tahay iyo haddii ay gaar ahaan gobolka tahayba marka waxaan u sheegaynaa cid kastoo danaynaysa danaha dhalinyarada iyo sababaha lagaga joojin karo tahriibta iyo aafooyinka balwadaha inaan ciddii dhiirigelin lahayd ama horumarin lahayd aanay jirin waxaan ognahay in 1 milyan lacag ka badan oo dollar ay qaataan oo ay hay'adaha iyo dawladda ka caawisa waxaan leenahay dawladda lacagta aad siinaysaan qolada ku tabashreynaysa ee baabuurta caada raaxada siisanaysa iyo dhismayaasha aad ku qurxoon u sameeyeen aad baan ugu xunahay waxaan jeclaan lahayn inaad arrinka wax ka bedeshaan ka dawladda Soomaaliya waxaan leenahay waad ku guul dareysateen dhalinyaradii aad matalayseen waxaan aad iyo aad u cambaaraynayaa dalada Soomaaliya ee ku shaqeysata magaca dhalinyarada ee tiraahdo waxaan matalnaa dhalinyarada Somaliland haddii aan nahay dhalinyarada gobolka Togdheer waxaan leenahay nama matalaan sababta aan inagu matalan waxa weeye dhalinyarta dhibaatada qabto kama hadlaan dhalinyarteenu maalmo dabadaha ku dhamaanaysa Soomaaliya waa 4 qof oo is urursatay oo kana hadashay danahooda jamhuuriyadda Soomaaliland dhalinyartiisa inaanay matalin waxna laga qabto hoosna loo eego waayo hadday matalayaan qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland dhalinyaradiisa wax far badan iyo guulo far badan oo ay gaareen baa la arki lahaa wax sida la ajligeed laba matasho waxaan doonayaa halkan inaan ka hadlay ishuuga Soomaaliya horta waa maxay Soomaaliya waxay iska dhigtay inay matasho dhalinyarada Somaliland mana matasho waa 4 qof oo danooda ka hadlay oo isu tagay annaga nama matalaan afgii ama dhalinyaradii Somaliland bay ku shaqeystaan waxna uma qabtaan waxna uma taraan dhalinyaro maraysan waa koox isku urursatay Hargeysa sanduuqii madaxweynuhu sameeyay ee sanduuqa dhalinyarada Somaliland ma soo gaadho dhalinyarada Somaliland ee dhalinyarada Reebro hadday noqoto gobolka Togdheer oo dhan hadday tahay shaqada hadday noqoto dhaqaalaha hadday noqoto waxbarashada midna kama soo gaadho dhalinyarada Soomaaliya ay keento marka waxaan leenahay madaxweyne arrinka dib ugu noqo haddii kale anaguna waxaan ku dhawaaqaynaa goolistaag dhalinyaro gaaro oo Reebro Tikriya Cabdiraxmaan Ibraahim shabakada wararka madaxa bannaan ee Hargeysa Price magaalada Burco ee xarunta